كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركii 88aad qaybtii labaad ee dhisidda ubadka jidhkooda ee barnaamijkeennii barbaarinta ubadka. waxa aynu ku soo jirnay casharkii kan ka horeeyey faa'iidooyinka markaa waa maxay jimicsigu u leeyahay jidhka ubadka. maanta waxaaynu ka warrami doonaa ilaa waa maxay 4 qodob ama 5 qodob iyaguna kala duwan oo markaa waa maxay ubadka jimicsiga faa'iidooyin markaa uu leeyahay. kow waxaa ka mid ah faa'iidada koobaad dee ubadka waa maxay dhinaca markaa tarbiyada iyo markaa waa maxay ubadka u toosiso ama dhinaca waa maxay dee ubadka maxay u dhaqmaya habdhaqankooda markaa. taa waxaa ka mid ah baa la yiraahdaa ubadkii markuu dee waa maxay tusaale ahaan intaasoo noocyo jimicsi uu samaynayo ama intaasoo meelood uu aadayo ama intaasoo kala duwan maxay ku jimicsanayo, waxa la yiraahdo wuxuu ku kala baranayaa waxyaabaha markaa loo yaqaano dee intaasoo magaco nooco la ciyaaro ayuu markaa baranaya. midabadiibuu ku baranayaa, dharkii markaa la xiran jiray maxay ku baranayaa, magacyadii kala duwanaa waxyaabahaasoo maxay ku baranayaa. taasi waa qodobka koobaad. ka labaad waxa la yiraahdaa ubadka faa'iido ugu jirta dhinaca bulshada marka la eego jimicsigu dhinaca bulshada uu leeyahay ubadka yar waxa weeye oo isagana waxa la yiraahdaa waxyaabaha markaa bulshada dhinaca xaggeeda qaladka ka ah ama waxyaabaha markaa aan diintu aan ogolayn ama dhaqanka aan ogolayn bulshada dhexdeeda lagu ogolayn ayaa haddii ubadku marka ay jimicsi sameeyaan ay markaa waa maxay ku ilaawayaan markaa iskaga ilaalinayaan. waxyaabaha waxa ka mid ah baa la yiraahdaa ubadka ay kaga fogaanayaan deegaan waxay inay waa maxay sigaarka bartaan oo kale, waxyaabaha waa maxay dee xashiishadii waxyaabaha la midka ah oo dhan alcoholka oo kale waxyaabahaas loo maxay kaga fogaanayaan baa la markaa ama caadooyinka xun oo dhan isla markaana waxay kaloo kaga fogaanayaan baa la ubadka marka jimicsi sameynaya iska ilaalinayaan deena maxay markaa dambiyada way markaa ay ku dhacaan sida maxay dadkeena wax u geystaan oo kale ama dadkii ay dhacaan oo kale ama dadkii markaa maxay ay dadka ay wax gaarsiiyaan oo kale. sidoo kale waxay ka raysanayaan baa ubadka kaga mashquulayaan dadkii waa maxay inay xaqdi la yimaadaan ama waxyaabaha xasadka loo yaqaan oo kale ama dagaaladii waxyaabaha soo maxay ubadka ciyaarta maxay kaga mashquulayaan marka faa'iido waxay u tahay ubadka hadii markaa dhinaca jimicsiga ay dhinaca bulshada faa'iido markaa ay waxa soo markaa ay iska ilaalinayaan markaa. dhinaca marka la eego markaa akhlaaqda marka la eego faa'iido markaa jimicsigu leeyahay waxa weeye dee haddii ubadkii ay waalidka la ciyaarayaan ama haddii ubadkii hadday waalidkii u doodaan ubad fiican ay u doodaan waxay ku baranayaan baa runtii bay ku baranayaan, cadaaladii bay ku baranayaan, ammaanadii bay ku baranayaan, inay maxay markaa naftooda ka adkaadaan bay ku baranayaan, waxay ku baranayaan maxay tartanka markaa maxay ku baranayaan. waxaas dhan waxay u tahay dhinaca marka akhlaaqiyan maxay ubadka ay uga faa'iidayaan. qodobka marka waa maxay number 5 waxa weeye jimicsiga faa'iidooyinka ubadka leeyahay ibdaaciya marka ubadku waxa markaa ku dadaalayaan mar haddii isaga uu arkayo intaasoo kala duwan loo ciyaari karo intaas markaa jimicsi loo samayn karo wuxuu ku dhiiranayaa mararka qaar waa maxay inuu isaga maxay markaa wax samayn karo marka isaga maxay alifi karo wax soo kordhin karo ama marka afkaar iyo fikir uu keeni karo marka. ka ku xiga waxa weeye marka faa'iido marka ku jirta daatiya macna ubadka nafahaantooda marka waa maxay marka u korayso oo waxay u koraysaa baa la yiraahdaa dee waa maxay wuxuu qofku ogaanaya u garanaya macnaha qudradiisa ama maxay awoodiisa u garanaya wuxuu waa maxay ku fiican yahay u garanaya ciyaarta ku fiican yahay u garanaya jimicsigu raba ayuu garanaya. sidoo kale waxa marka uu kala garanaya meesha ku badanaya dee waa maxay saaxiibadii waa maxay dhaqankooda akhlaaqdooda waa maxay dhaqanka ay leeyihiin noocyada ay jecel yihiin waxaasna waa maxay halka uu ku ogaanaya marka. kawdamaya waxa weeye baa isagu aad ka muhiimka ah ubadkii wuxuu markaa jimicsigu ka ilaalinaya waxyaabaha marka loo yaqaan marka dee dadku ay inta badan yiraahdaan qofku ama stress ha yiraahdaan depression ha yiraahdaan ama caajis ha yiraahdaan waxyaabaha adigu waxaan ogaanaa waa maxay ubadka u keenaya caajiska u keenaya ayuu waa maxay jimicsigaas ubadka waa maxay ka ilaalinaya wuxuu noqonayaa qof marka firfircoon marka oo maxay more energetic oo markasta maxay ordi karaya wax kasta maxay samayn karaya waxa laga yaabaa xataa waa maxay iska daadeenaga waxa laga yaabaa halkeena qofku in wax barashada aadaba culays ku ah laakiin hada jimicsi ugu dartid
waxa laga yaabaa inuu aad wuxuu akhriyo iskuulkii inuu dhigtaa laga yaabaa quraankii inuu dhigtaa laga yaabaa haddana waxa yaabaa inuu wax kale haddana waxaan baranayaa marka laakiin haddii waa maxay intaas meesha aanay ku jirin iskuulkaas marka waa maxay aad ugu adkaanaya intaas waxay ku kooban tahay ilaa waxaanu sheegnay sidii faa'iido ku jirta marka jimicsiga waxaanu ku soo gabagabeynaa marka hal qodob oo aad u muhiim ah waxaanu ka soo warramaynaa maxay qaabka marka aynu dhisan ubadka jirkooda laba shay marka ayaa marka ubadka u sheegaya waxa weeye qodobka koowaad dee waxa aynu ka hadlayno oo dhan ama waxa aynu sheegayno oo dhan waxa u baahan yihiin horta marka koowaad in waalidku marka ay horta hadaf yeeshaan oo koow ilmahayga waad eegaysaa hadday laba ubad kuu joogaan ama hadday saddex kuu joogaan waa markaa ka fakartid horta marka ugu horeysa ubadkan si u dhisi kartaa marka maxay jirkooda marka taas waa in hadaf ku noqoto ka labaad waxa weeye marka inaad ubadka u samaysid jadwal marka ama iska jadwal caadiya iyo marka nidaam marka ay raacaan oo ay ku socdaan laakiin haddii marka ka soo horbaxo hal fiidiyo qofku leeyahay ubadka jirkiisa saas loo koriyaa noocaas la sameeyaa hal maalin u samaysid maalin labaad inaad u samaynin wax marka soo kordhay hagaagti ma jiraan marka waxaan uga baahanahay waalidka aan ku dhiirigelinaa aan u sheegaynaa waxa weeye time table soo qaata ubadkiina waxa weynaga kala qaadnay qayb kasta nooca munaasibka weynaga sheegnay sidaa waxay u kala habeeyay macnaha weegan intuu ciyaari lahaa weega dambe wuxuu ku jimicsan lahaa bisha dambe bisha ku sii xigta weynaga waxay sidaa ku kala socdaan marka laakiin haday noqoto maanta ha boodboodo bariha iska seexdo maanta waxa cuno maanta meel kale iska aado waxa marka ma soo kordhayaan jirkoodina ma korayo aqligoodina ma korayo nolosha waxa marka saas wuxuu ugu jiraya marka wareega ugu jiraya marka ubadka taana aynu ka dayno oo maxay jadwal iyo marka joogteen fiican ayna marka u sameeyno qaab maalin kasta wuxuu sameyn la marka ayna meel gaar ah maxay aan ugu qorno marka si sax ah oo fiican oo toosan oo tolmoon ugu kor oo ugu dhisno jirkooda marka inahaasayna halka waxa noogu dhamaadeen marka qaybtii aynu soo dhisanay ubadka marka jirkooda qayb cusub ay bilaabi doona insha Allah ta'ala casharadeenna dambe inahaasayna ku jirnaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.